waxaan barta ka taaganahay inta u dhaxaysa Xaawa Cabdi Lafoole waxaan halka ka socda dhismaha markaas laamiga lagu saarayo wadada isku xirta Muqdisho ilaa iyo Afgooye meesha aan taaganahay ciidamada halkan sida gaarka u ilaaliya waxay ku toogteen qof nafti haliga oo markaas isku soo xiray jaakadaha walxaa qarxa isla markaana waxa ku dhintay hal askari iyadoona markaas ay ka badbaadeen dadkii kale ee halkan shaqada ka hayay wali waa ay socotaa wadada markaas laamiga lagu saarayo Muqdisho ilaa Afgooye markaas isku xirta iyadoona halkan ay soo gaareen injineerada Turkiyaanka ee shaqada gaarka ka haya wadadan iyo sidoo kale taliyaha ciidamada gaarka ee Haram Cad Farxaan Maxamuud Qaroole waxaana markaas ay halkan u imaadeen in indhan ay ku sameeyaan sida qaabka ay wax u socdaan iyo dhacdadii oo markaas ay ka wareysteen dadkii halkan goobjoog u ahaa hase yeeshee dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi iyadoona sidoo kale wararka kale ay sheegayaan in dhaawacyo fudud ay soo gaareen laba ka mid ah askarta Haram Cad ka ilaalisa wadada iyo shaqaale Turkiyaan iyo Soomaaliya oo markaas ku howlanaa dhismaha wadadaasi ujeedkiis midaamiyaha ayaa lagu sheegay inuu doonayo in isku qarxiyo gabi ahaanba dadka ka shaqeynaya halkaas ee dhismaha ka wada wadada iyo sida la sheegay in gabi ahaanba burburto makiinada lagu dhiso halkaasi taasoo sabab markaas u noqon lahayd shaqada wadada inay istaagto balse ka hortag xoogan ayay ciidamadu sameeyeen kadib markii midaamiyuhu sida ay sheegeen toogasho ku dileen way socotaa shaqada laga wado inta u dhaxaysa Afgooye ilaa Xamar maadaama ay marayso hadda wadadaasi heer gabagaba ah isku xirka wadada Afgooye ilaa Muqdisho tan iyo markii dhismaha lagu bilaabay waxa ka dhacay falal lid ku ah amaanka oo dhibaato ay ka soo gaareysay shaqaalaha halkaas dhisay ciidamada sugaya amaanka iyo shacabka ka agdhow goobtaasi isku xirka wadada Afgooye ilaa Muqdisho tan iyo markii dhismaha lagu bilaabay waxa ka dhacay falal lid ku ah amaanka oo dhibaato ay ka soo gaareysay shaqaalaha halkaas dhisay ciidamada sugaya amaanka iyo shacabka ka agdhow goobtaasi muddo kooban ayaa hakad ku jirtay dhismaha laamiga lagu saarayo isku xirka wadada Afgooye ilaa Muqdisho xaalada amaan darteed ha ahaatee dib ayaa loo bilaabay dhismaha wadada iyadoona markaasi shacabka magaalada ku nool caasimadda Muqdisho ay dhibaato xoogan ku qabeen maritaanka wadadaasi maadaama burburka ka muuqday uu ahaa burbur xoogan hadda se muuqaal ahaan wadada markaad fiiriso waa mid ka gidaysan wajigii hore ay lahayd kadib markii dib loo soo celiyay bilicda wadada lana saaray laami kuna dhow heer dhamaad dadkuna ay dhor sugayaan kaliya mar uun in la daafuro si dadka iyo gaadiidkuba ay u isticmaalaan maadaama ay tahay wado muhiim ah qaab dhismeedka wadada ayaa hadda ah mid hab casri ah loo dhisay walow dadka shaqada ka haya ay walwal xoogan ka qabaan ammaanka wadadaasi oo inta badan falalka ka dhaca halkaasi ay yihiin kuwa soo noqnoqday hase yeeshee waxaa ku sugan ciidamada sida gaarka ah loogu talagalay halkaasi ee ku shaqada leh sugidda ammaanka in muddo wax dib u dayactir iyo dhismo maysan helin isku xirka wadada Afgooye ilaa Muqdisho shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa tan u arkay inay muhiim tahay maadaama markii hore ay dhibaato xoogan ku qabeen wadada u dhaxaysa Afgooye ilaa Muqdisho waa wado wali dhismaheedu uu socdo isla markaana waxa si gaar ah halkan u ilaaliya ciidamada Haram Cadka dhowr jeer oo hore falal caynkan oo kala ayaa halkan ka dhacay Faadimo Cabduqaadir Xasan raadiyo TV-ga Dalsan shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE